Kani waa casharkayagii ugu horreeyay ee barashada luqadda Java-ga. Wuxuuna ku saabsan yahay Introduction to Java. Waxyaabaha aan ku baran doono waxaa ka mid ah taariikhda iyo horudhaca Java-ga. Waxaan kaloon baran doonaa marxaladaha uu Java programku maro. Programka Java-ga marka la qoro ilaa iyo marka ugu dambeysa ee CPU-ga fuliyo amarada programkaas ku jira. Wuxuu maraa tillaabooyin aad u fara badan. Waxaan baran doonaa tillaabooyinkaas. Waxaan kaloo arki doonaa non-objects wax la yiraahdo oo ka kooban keywordska, punctuationska, literalska iyo waxyaabaha la midka ah. Ugu dambeyntiina casharka qaybtiisa ugu dambeysa waxaan ku baran doonaa xogta iyo noocyadeeda. Xogtu waa datada, noocyaduna waa data typeska. Datada waan soo aragnay waxay tahay casharkana si fiican baan ugu sii baran doonaa. Aan u gudubno casharkayaga. Qaybtan waa qaybta aan ku baranayno taariikhda iyo horudhaca Java-ga. Luqadda Java-ga waxaa la qoray 1991dii, waxaana qoray koox software developers ah oo uu hogaaminayo James Gosling oo u shaqaynayay shirkadda Sun Microsystems. Magacii hore ee luqadda Java-ga loo aqoon jiray wuxuu ahaa Oak, balse 1995tii ayaa magaca laga bedelay oo loo bixiyay Java. Java-ga waxaa qora oo dayactira sida aan soo sheegnayba shirkaddan Sun Microsystems oo ay u shaqaynayeen James Gosling iyo markay bilaabeen qoritaanka luqadda. Java-ga waxay isku naxwo dhow yihiin luqadda C++ka oo iyaduna kasoo farcantay luqadda C, balse tani macnaheedu ma ahan in Java-ga iyo C++ku isku mid yihiin. Ujeedada markii hore loo aasaasay luqadda Java-ga waxay ahayd in lagu qoro softweerada lagu shubo embedded systemska oo ah kombiyuutarada ku dhex dhisan aaladaha guryaha iyo xafiisyada lagu isticmaalo iyo weliba meelaha kale. 1995tii ayaa waxaa lasii xoojiyey luqadda Java-ga si ay u taageerto teknolojiyadda cusub ee markaas soo baxaysay oo ah World Wide Web ama WWW. World Wide Webka waxaad u fasiran kartaa internetka inkastoo uu farqi u dhexeeyo labadooda. Wuxuu Java-gu noqday luqadda ugu horreysa ee lagu qoro programyo fudud oo web browser-ku download garayn karo oo loo yaqaano applets. Maanta waxaa luqaddan Java-ga loo isticmaalaa dhisidda noocyada kala duwan ee softweeradaasoo lagu shubi karo noocyada kala duwan ee kombiyuutarada sida serverada, clientyada, embedded systemska, kombiyuutarada warshadaha iyo wixii la mid ah. Java-gu waa luqad platform independent ah. Tani macnaheedu waxa weeye programyada ku qoran Java-ga waxaa lagu isticmaali karaa kombiyuutar kasta adigoon ka walwalayn nooca CPU-ga kombiyuutarka iyo weliba operating systemkiisa. Luqadda Java-gu waa object oriented. Tani macnaheedu waxa weeye programyada Java-gu waxay ku salaysan yihiin objects ama ashyaa isla xiriira. Objectsku waxay noqon karaan wax kasta oo aan jiritaankooda aqoonsanahay iyo kuwa aanan aqoonsanaynba. Tusaale ahaan, gurigu waa object, cudurku waa object, fikraddu waa object, qofku waa object. Java-gu waa luqad ammaan ah oo ka foojigan hanjabaadda kaga timaada dibadda sida hackerska, fayrasyada iyo weliba khatarta ay sababaan cilladaha programyada gala oo loo yaqaano bugska. Tayada luqadda Java-gu ma ahan wax halkan aan kusoo koobi karno, balse waan arki doonaa markaan barashadeeda si fiican u dhex galno. Haddii aad doonaysid in aad luqadda Java-ga isticmaashid, waa in aad softwarekeeda soo download garaysaa. Nasiib wanaag Java-ga waxaad ku heli kartaa lacag la'aan. Ogaaw, luqad kasta oo programming language ah softwarekeedu free ma ahan. Intaas waxaa noogu dhan horudhicii iyo taariikhdii koobneyd ee luqadda Java-ga. Inta aanan u gudbin qaybta ku xigta, waxaan jeclaan lahaa in aan idin sheego cashar kasta ee programming ah ee aad qaadatid wuxuu noqon karaa laba waxyaalood midkood. Wuxuu noqon karaa theory ama practice. Theory waa marka casharka hadal ahaan lagugu sharaxo oo
aadan wax practice aadan gacanta ka samaynaynin. Practicekuna waa marka aad arkaysid codekii softwareka ama programkii aad qoraysay oo shaqaynaya. Mar kasta waxaa adag oo dhib badan marka theoryga lagugu sharaxayo, waayo waxyaabo badan baad maskaxdaada ka sawiranaysaa. Marka haddii casharka maanta aan qaadano uu idinku adkaado, dhib ma lahan. qaybaha ku xiga maalmaha ku xiga buu idiin fududaan doonaa haddii ilaa yidhaahdo. hana isku dayin in inta aad hal mar casharka akhrisid, casharkao dhan aad hal mar ku fahantid. waxaad u baahan tahay ugu yaraan dhowr mar inaad ku ceshceshatid ama aad daawatid. marka haddii ilaah yidhaahdo waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigta casharkayaga. labadii cashar ee tegay ee ku saabsanaa introduction to computing iyo introduction to software, waxaan kusoo barannay in CPU-ga ay shirkado kala duwan soo saaraan sida Intel iyo AMD. in CPU-gu luqadda uu fahmo loo yaqaano machine language, ayna instructionskeedu ka kooban yihiin eber iyo hal. in nooc kasta ee CPU ahi uu yeelan karo ama leeyahay machine language gooni u ah. in operating systemka u adeega CPU-ga ee ku jira kombyuutarka CPU-gu ku jiro uu noqon karo noocyo badan midkood sida Windows iyo Linux. in programyada lagu qoro programming languageska sida Java-ga ay ka kooban yihiin instructions ama amaro uu CPU-gu fuliyo. in loo baahan yahay in la turjumo programyadan si CPU-gu u fahmo instructionskan iyadoo la adeegsanayo tools loo yaqaano compilers, interpreters iyo assemblers. maadaama kombiyuutarada CPU-yadoodu iyo operating system-yadoodu kala duwanaan karaan, in hal nooc oo CPU ah iyo operating systemka la shaqeeya la isku yiraahdo platform. in programka lagu shubi karo kombiyuutar kasta noocuu doonaba ha noqdee CPU-giisu iyo operating systemkiisu loo yaqaano programkaas platform independent. aan mar kale qodobkan sharaxo. haddii aan qorno program Java ah kadibna aan go'aansanno in aan compile garayno, kama walwalayno kombiyuutarada programkeena lagu shubayo machine languageska ay fahmaan iyo operating systemka ku jira kombiyuutaradan. haddaba programyada Java-gu waa platform independent. haddii aan luqad kale sida C++ aan ku qorno programkan, waa in aan ogaanaa machine languageska iyo operating systemska kombiyuutarada lagu shubi doono programka, sababtoo ah programyada C++ku ma ahan platform independent oo waxaa lagu shubi karaa kombiyuutar ay ku jiraan hal nooc oo CPU ah iyo hal nooc oo operating system ah. kombiyuutar kale oo ay ku jiraan nooc kale oo CPU ah ama nooc kale oo operating system ah kuma shubi kartid programkan, balse programka Java-ga waad ku shubi kartaa. in programyada Java-ga waxa u fududeeya in ay noqdaan platform independent ay tahay in Java-ga uu yahay luqad dabiici ahaan la compile gareeyo isla markaana la interpret gareeyo, halka luqadaha kale sida C++ka la compile gareeyo oo keliya. haddaba inagoo niyadda ku hayna qodobadan, aan bilowno sharaxaadii casharka maanta qaybtiisa ku saabsan marxaladaha kala duwan ee ay sii maraan programyada lagu qoro luqadda Java-ga marka la qoro ilaa marka uu CPU-gu fuliyo instructionska uu programku ka kooban yahay. si aan idinkugu fududeeyo fahamka marxaladahan, waxaan qoray tusaale ka kooban sawirro iyo qoraal oo isbarbar dhigaya marxaladaha uu programka Java-ga ahi maro iyo marxaladaha uu maro buug ka kooban amaro la doonayo in ay fuliyaan akhristayaal fara badan oo ku kala hadla luqado kala duwan. qoraalka tusaalayaashu alaaba wuu dheer yahay, wuxuuna u baahan yahay waqti badan oo la isku barbar dhigo iyo dulqaadasho badan. haddaba idinka ayaa la idinka doonayaa in aad akhrisaan qoraalka tusaalahan oo ku jira faylka magaciisa la yiraahdo Understanding Java ee la socda casharkan. balse waxaan dul marayaa sawirada tusaalahan inagoon waqti badan ku luminayn.
Inkastoo marxaladaha programka Java-ga uu sii maro ay fara badan yihiin, balse innaga oo ah programmerka qoraya programkan, hawshayadu ama doorkayagu waa in aan qaadnaa 3 tallaabo oo keliya. Saddexdan tallaabo waxay kala yihiin write the program, compile the program, run the program. Marka aan qaadayno 3dan tallaabo, waxaan isticmaalaynaa tools ama programyo noo fududaynaya qaadidda tallaabooyinkan. Tusaale ahaan, marka aan qaadayno tallaabada koowaad oo ah write the program, waxaan isticmaalaynaa tools noo fududeeya in aan qorno programka sida text editska oo ay ka mid yihiin Notepadka, Wordpadka, Eclipse IDE text editor isaguna wuu jiraa, iyo kuwo kale oo fara badan. Marka aan qaadayno tallaabada labaad oo ah compile the program, waxaan isticmaalaynaa Java compiler sida midka la yimaada Java-ga oo la yiraahdo Java compiler ama Java C la soo gaabsho. Marka aan qaadayno tallaabada ugu dambaysa oo ah run the program ama execute the program, waxaan isticmaalaynaa toolska sida Java interpreterka. Magaca kale ee Java interpreterka loo yaqaano waa Java Virtual Machine, isagana waan arki doonaa wuxuu yahay. Tallaabo kasta oo aan qaadno iyo tool kasta oo aan la isticmaalno waxay soo saaraan code, nooc code ah. Tusaale ahaan, marka aan qaadayno tallaabadan oo ah write the program, codeka noo soo baxaya wuxuu noqonayaa waxaa la yidhahdaa source code. Marka aan qaadayno tallaabada kale sida compile the program oo aan isticmaalno toolkan ah Java compiler, codekaygu wuxuu noqonayaa bytecode. Marka aan tallaabada ugu dambaysa qaadayno oo ah run the program, Java interpreterkan aan isticmaalayno, codekaygu wuxuu noqonayaa machine code. Tallaabooyinka aan hadda sharaxnay waa tallaabooyinka uu qaado programmerku, wayna fudud yihiin, balse aan eegno hadda sida uu kombiyuutarku uga jawaabo tallaabooyinkan. Haddii aan qorno program Java ah oo ka kooban hal class, classkaasna aan ku magacaawno helloworld.java, waxaa codeka ama qoraalka ku jira classkan lagu tilmaami karaa in uu yahay source code. Source codeku waa code aan innaga iyo compilerku isla fahanno, waana code ka kooban erayada iyo sharciyada luqadda Java-ga. Marka codeka uu yahay source code, class name extensionku wuxuu noqonayaa .java sida hadda halkan ku aragtaan hello world.java. Class name extensionku ama file name extensionku waa qaybta ugu dambaysa ee classka ama fileka, qaybtan hadda aan mouseka u dhaweynayo. Marka classka source codeka ah qoridiisa la dhammeeyo, waxaa la bilaabaa compilation oo ah in classkan source codeka ah loo turjumo bytecode iyadoo la isticmaalayo Java compiler. Sida idiin muuqataba, compilerku wuxuu u turjumaa source codeka bytecode. Classkii ahaa helloworld.java markii la turjumay wuxuu noqday helloworld.class. Waxaan hadda soo gaarnay shaqadii Java Virtual Machine-ka ama JVM-ka. JVM-ku waxa uu yahay iyo shaqadiisa waxaad ka heli kartaa qoraalka tusaalahan. Haddase waxaad u fahantaan in uu yahay turjubaan kale oo bytecodeka u bedela machine code. Machine codeku waa codeka uu fahmo CPU-gu. Platformka sidaan horey usoo sharaxnayba waxay ka kooban tahay operating systemka iyo CPU-ga. Java runtimeka sharaxaadiisa isagana waxaad ka eegtaa qoraalka tusaalahan. Aan idin tusa sawirka labaad ee tusaalaha. Sawirkan wax badan ka oran maayo waayo wuxuu ku qoran yahay af Soomaali, isagaana is-sharaxaya. Waxaa wanaagsan in aad la barbar dhigtaan sawirkii hore ee aan soo aragnay